As the noon deadline passed, the normally bustling Champs-Élysées was almost deserted. The famous shops and pavement cafes of Paris shuttered by orders of the French president. Midowga Yurub ayaa soo saaray go'aan ay dalalkooda ugu hor istaagayaan inay soo galaan dadka ka soo socdaalaya dalalka kale ee aan ka tirsanayn Midowga Yurub. Sohdimaha dalalka Midowga Yurub ayaa xirnaan doona muddo 30 cisho ah, taas oo looga gol leeyahay in lagu xakameeyo fiditaanka cudurka COVID-19. go'aankan ayaa ka hirgeliyay 26 dal oo ka tirsan Midowga Yurub iyo waliba Iceland, Norway iyo Switzerland. xeelada xuduudaha Midowga Yurub ayaa timid xilli ay sare u sii kacayso tirada dadka u geeriyoonaya coronavirus oo farag kulul ku haya Talyaaniga iyo Spain. Yurub ayaa ka mid ah meelaha uu sida aadka u halakeeyay fayraskan. ilaa iyo haddana dunidu ay u geeriyoodeen dad lagu qiyaasay 7,500 oo qof, halka uu soo ritay in ka badan 185,000 oo ruux oo ku kala nool daafaha qaaradaha dunida. fiditaanka fayraska oo xawli weyn ku socda ayaa inta badan curyaamiyay dhaqdhaqaaqyadii bulshada sida ganacsiga, waxbarashada iyo shaqooyin fara badan oo uu saameyn weyn ku yeeshay fayrasku. Amazon has said it plans to hire 100,000 warehouse and delivery workers in the United States to deal with a surge in online orders as many consumers have turned to the web to meet their needs during the coronavirus outbreak. dhinaca kalena shirkadda wax ku iibisa online-ka ee Amazon la yiraahdo ayaa sheegtay inay shaqaalaysiinayso 100,000 oo ruux, kuwaasoo isugu jira kuwa ka shaqeeya bakhaaradeeda iyo kuwa qaada dalabyada ka yimaada macaamiisheeda ku sugan Mareykanka. Amazon ayaa sheegtay in qorshahan ay uga gol leedahay maadaama uu aad u kordhay dalabka macaamiisheeda inta lagu jiro intii uu dilaacay cudurka coronavirus oo aanay dadku doonayn inay tagaan goobaha supermarketyada. goobaha dukaamada ayaa aad ugu hawlan hagaajinta iyo nadiifinta iskafaalooyinka, isla markaana shaqaalaha u badinaya goobaha kaydka si looga fogaado fiditaanka ama in la isqaadsiiyo coronavirus. sida Amazon oo kale waxaa jira shirkado kale oo iyaguna iibiya waxyaabo kala duwan sida khudaarta ayaa iyaguna shaqaale cusub qaadanaya si ay si dhaqso leh uga jawaabaan dalabyada ugu imanaya dhanka online-ka oo aad u kordhaya tan iyo markii uu bilowday cudurka coronavirus. waxaan doonaynaa in ay dadkaasi ogolaadaan shaqaalaha cusub ilaa inta xaaladdu ku soo laabanayso sideedii hore oo ay la macaamilaan shaqaalaheenna cusub. Amazon ayaa ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay boggeeda. coronavirus ayaa sabab u noqday dhimashada in ka badan 7,000 oo ruux iyo xanibaadyo badan oo dad ah, waxaana sidoo kale dhammaaday agabkii ay haysay shirkadda Amazon iyo shirkado kale. sidoo kale alaabaha loo kala dhoofiyo caalamka ayaa qaata waqti ka badan kii hore caabuqa coronavirus oo dilaacay awgiis.